waxaa laga yaabaa laba things a jiro, two things. Midda koowaad oo ah in gabadha by mistake ay igaga tagtay, iyo in midda labaad oo ah positiveka aan ka fiirinayo in wanaagga ay igu filaysay ay iga wayso mid kale ay ka hesho. Ragga libinta waa loo qiraa. Marka waxaan leeyahay bayo ruuxa hadduuba wanaaggii aniga aan kuu waday mid ka sareeya hadduuba ku gaarsiiyey, walaasheeda waxaan leeyahay calaf ilaahay iskiin dara. Waayo mustawee iga rabtay aan gaari waayo. Marka ragga libintooda waa loo qiraa. Arrintaa waa cafin lahaa. tan kalena aan ku daraya waxay tahay gabadha marba hadday firi gabadha hadday ku jeclaato heer waxay gaari kartaa nafteeda ay ku goyn karto. gabadha hadday ku nacdana heer waxay gaari kartaa naftaada ay goyn karto. ma fahad marka gabadhan haddayba i nacday intayda naftayda intay usoo dhaadhici leed oo waxaa laga yaaba beri ka maalin inay xaalad adag aniga igilis ninkaa maalin walba waa ku dhibay adigana jeceela haysata maalin walba jeceelkaadii adiga ninkaan caqabad ugu isdhaafi xataa inay ku fikirtaa laga yaaba. marka maxamed bashir wallahi labadaba u ducayn lahaa maxamed bashir okay ani waxaa kuu sheegaa marka sababta aan ninka u raadiyey waxaa kaa rabaa inay dhahdid waa ku qaldaneed inaad raadiso iyo waa ku saxneed inaad raadiso adiga aragtidaada. horta waxaa jirto waxaa la dhahaa dantaada maqaar iyaa loogu seexdaa. aniga gabadha markaa ku dhaha ereyga ugu dambeeyey ee taas ahayd waxaan aamini waayey oo niyaddeeda soo geli weyso oo marnaba aa qaadi waaye wuxuu ahaa inay waxa ay ii sheegaysa ay runtahay. niyaddeeda waa ka daadicin waaye inay i dhahday nin igu filanaa haystaa iga leexo. macnaha waxay ila naqatay wax kaftan camal ah. bil aa dhammaatay bil kalaa dhammaatay bil kalaa dhammaatay bil waxaan dhahaa ami ku soo wacdaa sug ma ii soo wacaysa 2 isbuuc 3 anaa hal mar wacay telefoon ma ii qabanayso ami qoraal kuu soo dirtay sug qoraala u diraa qoraalkii 2 isbuuc kadib ay furay ma ii soo jawaabayso. macnaha waxa aa raadinayo waxay ahayd waxa ay ii sheegaysay inay runtaa inaysan run ahayn. macnaha ninkii aan raadiyey wuu iga fiican yahay iyo ninkii ma raadinayo ma iga fiicna ma ahan ma taagno. laakiin ereyga qofkii igu dhahay wuxuu ahaa qofkii wax igala dhexeeyey maadaama saasay igu dhahday waxaan raadinayay aan xaqiiqsanayay inay aniga iga maarantay oo nin kale heshay oo nin kale ay raadisay in kale bas intaasaa raadinayo. marka inaan intaa raadi maarlay walaal gabadhaada ay qaatay isoo wareej maxamed ima fahmin sababta aa u raadinayo wax asaga qusaysa ma ahan. sababta u raadinayo waxay ahayd inay aniga ii kala caddaato inay run ii sheegaysay iyo inay been ii sheegaysay. 7daas biloodaa kuu sheegayane 7daas bilood waa 7 bilooda offline aan naqday oo muuqaale xitaa aa soo duugay oo wax kastaas sheekada idinku waxa u malaysay sheekada iska sameeyay sheekadan isiya markan waa dhamaysteen qofku jecel been ma uu kugula kaftami karo waaba dhamaysateena ma isiisaan hal mar maanta Harun Janisiya Janis hal isiyo marna khadka iga xumaaday haddana maxay ahayd alafaan kusoo fuulay meeshan. horta salaamu calaykum qurux ku dhigle maariish aruush waa idin salaamay maal asxaabta dhammaan horta waa idin salaamay. laakiin sheekadan waxaan weydiinayaa waxaa isla wadaagaynaa maariishin lama wadaagayo aruushin lama qurux ku dhiglan la wadaagaa adi dhibanihi tahay ma aho i dhegeyso aruush mi maqle okay qurux ku dhigle waxaan ku dhahay saaxiibow maanta ka soo qaad antaas dhanna isla wada soconay aan maxay ahayd 2 sano ha ahaato 3 sano ha ahaato whatever 3 months qof bil aa ka baran weysid maxaa la dhahay hal maalin kuma baranaysid ma ahayn oo maamaxda si fiican. okay intaas oo dhana ila socotay maxay ahayd ma garan weysay adiga meesha Harun ma i dhegeyso waa la socday wallahi billahi waa la socday ilaa zaybin ilaa jakin ilaa kaara ka sheekeynaysa waa maqlay waxaan dhan ma soo xusay digla la socdaa dhiin gabaraa la socda gabar tusaale ka dhig no like a fairy na maxay ahayd like kuma wadi saas meesha u faantay kuma wadi okay qurux ku dhiigli baan ka soo laabto haye sheekadaada u imaado sheekadaada u soo noqon aruush waa ku qaadanay okay maya sheekadaada u soo noqonaa marka okay saaxiibkay aruush maxay ahayd horta barasho wanaagsan saaxiibow horta maxay ahayd aniga waxaan ku dhihi lahaa talaa rabtaa ma aho adiga tala soo okay tala soo ma wadatid oo tala lagu siiyo oo weyga oo the free way u baahan tahay ma aho adiga aad ku aadid noloshaada aad ku soo noqotid hadda aad dhiban tahayna nolol fiican aad ku soo noqotid soo ma rabtid saaxiibow horta waraan kuu sheegaa meeshaas horta jecel adiga lagu qabay muusan oorin
khiyaano iyo lagdabo iyo maxay ahayd adaaf wax fahmi waayey naag weligay maxay ahayd aysan caruur ninka u dhalin maan arkin oo shukaansi la ahayd oo ninkii awal hore ishukaansanayaan ku noqona adiga waa ku tuuray weligay horta ma arkin caruurtay ninkoodan ku noqona maxay ahayd waa maqlay arrintiina shukaansi aheede shukaansi qof lagu xooraay weligay ma arkine oo ninkii hore ishukaansanayaan ku noqona weligay ma arkin saaxiibow meeshaas maxay ahayd khiyaanaa socotay wixii oo adiga fahmi kartid iska fahan iskaga tag naagtaas aniga waxaan ku dhihi lahaa sida maariish ay sheegtay aan ku raacsanahay nambarkeeda iska tir whatsappkeeda iska tir facebookeeda iska tir isku day inaad naag ka qurux badan aa heli kartid isku day inaad naag ka sharaf badan aa heli kartid ma aha keliya ha dhihin naagtan maxay ahayd wax kale oo maanta aan ku tilmaamo malaha ha dhihin naag kale wax maxay ahayd ool mid waaye wax ma kala dheero maxay ahayd naag ka dabcid fiicanaa heli kartaa naag ka fiicanaa heli kartaa maasha allah biriqdana adaa u samaysan kartid wax oo maxay ahayd baatilaamyeriga ka bedeli kartaa wax weyn maaha ma fahantay marka has dhihin gabadhaas waan jeclahay waa u dhiminoy waa u oynoy ha dhihin saaxiib anagana hana baahadirin raggana ha u gafin naagaha waa laga tilaabsadaa antaysan kaa tilaabsanina laga tilaabsadaa ma fahant adiga ka carar meesha adaa la raba inaad ka carirtid niyow haddaa wax aragtay maariisha ii xanaagin yaa haaruun hadda ma hadli karaa waa hadli kartaa horta tusaale waxaa ka soo qaaday anoo adig kula socday haye anoo adig kula socday ma iga yeesho marka haddii oo wax oo xumaanaysan ku jirin haddii xumaanaysan ku jirin hay bas sheekada aan kuu sheego walaalkii haaruun waxaa la dhahaa waayaha adduunyada dad waaya aragaa laga wareystaa markaa ku leeyahay waayaha adduunyada dad waaya aragaa laga wareystaa xanuunka adiga ku haayo keliya waxaad dareemi karo laba qofood xanuunka adiga ku haayo exactly xanuunkiioo kale qofka uu haayo uu ku dareemi karaa qof maanta dhan horta xanuun haddii laga sheekeeyo jecelka ma bogsoonaayo xanuunka mar buu imaadaa marna wuu baxaa qur'aan isaar haaruun waa hadashee inaa hadlaa rabaa oo ku dhegaysanayo ama aamusi ilaa 5-10 daqiiqa hadal kadib 1 daqiiqa ku hadlaysay intaa rabtid hadal haye ila dhegaysta waxaan ku dhahay xanuunka adiga markaas ku haaye ee aad dabada u raadinaysa laba qof keliya kula fahmi karo ima xanuunka adiga ku haaye exactly kiyoo kale qof haaye inuu kula fahmi karaa xanuunkaaga qof soo maran waa uu kula fahmi karaa maanta inaa adiga qof jeclaatid oo aa qof u jiljilcanaatid oo aa qof micnaha aad u dareentid ciriiri adduunaa u dareentid kuma xirna inaad dumar tahay kuma xirna inaad rag tahay kuma xirno ilaahay ragga iyo dumarkaba markay xanuunka oo imaada isku siya xanuunka u dareemaan qalbigana isku siya wax uga dareemaan qofka hadduu faraxsan yahay oo qalbiga ka farxo dumar waayo farxaddaada intaasay la eg tahay ama ragaa tahay farxaddaada intaasay la eg tahay ma jiro isku siya farxadda iyo murugta loo wada dareemaa markaa taa ka soo dhaadhaco gabadha aa ka hadlay ama wax ani aa meesha hadda ka sheegay qofkii soo maray oo jeceel intaa la eg soo maray aad dareemi kara jeceelka xanuunkiisa dareemi karo markaa kasoo gudbo bointiga ahaa caruushow waxaad dareemi weysa meel adi aa lagula rabin ayaa adiga isla rabto danaa meesha taala dantiyaa fahmi weysa aa igu dhahda horta waana ku saxan tahay meeshaas waxaa ku saxan tahay aniga gabadha iguma dhihin exactly nin hebelaa ku noqona ima dhihin exactly nin hebelaa la socda ima dhihin xkayga horaa la hadlaa ima dhihin waxaasoo idil ma is igu dhihin waxay igu dhahday aniga nin kalaa la socdaa nin igu filana haystaa waxaa isku dayey inaan ninka raadiyo waxaana isugu dayey keliya inaan ogaado inay waxaan iyada dhab ka tahay inaysa dhab ka ahayn waxayna igu qaadatay 6 ilaa 7 bilood igu qaadatay kadib waxaa arrinta la wadaagay oo aan u sheegay oo min bilaab ilaa min dhammaada u sheegay sheekh xasan ibraahim ciise oo nairobi joogo saaxiibkii walaalkii dadkan iigu sokeeyo idinka dhammaantiina aa wada taqaanin sheekh xasan waxaa jirto muuqaal ani oo iigu duceynayo oo leeyahay dacwada meeshaada ka wad saasame oo dhiirigelin oo igu siinaayo waxaan joojiyey markaan ku leeyahay almost muddo 6 bilood 5 bilood waxaan joojiyey
muuqaaladii aniga aan samey jiray ee wacdiga iyo waanada ahaayaan joojiyey li'annahu qofka markuu wax samaynayo ama wuxuu u istaagayo waa qof qalbigiisa dhisan yahay hore u socdo laakiin qof aad u qalbi jabanaan noqday haddaa kasoo gudbo talada hadda aan ku weydiinayo ma ahan gabadha inaan jeclahay inaan gabadha jecleen ma ahan aniga iyada waa ka sabray faraha ka qaaday horaa uga sii gudbay laakiin waay ilaa yowmul aana aysan u ogoleen ani inaan wax qabsado ama ay iga dawareegay ama haddaan qof la hadla ay raadinaya dhowr gabdhoodoo waxaa jirto igu aragtay ay raadisay ee luuq oo gashay dhahday saas waay saas waay maxaa ka rabtiin maxaa saas u yeeshay taas jawaabteeda ma u baahan tahay in lagaa soo daba hadlo wax lagu ogoleen maxay ahayd jawaabteeda ma rabtaa mugsiya laakiin iyadoo oo si naxariis leh ku jirto gabar madaxa loogu istaaga aa sheegaysaa kuma dhihin laakiin ragtanimadaada muuji aan ka wadaa okay su'aalan su'aalan ku weydiinaa aruush adi jecel see u taqaanaa jecel waxa u aqaanaa dhowr xarfood oo si aa u taqaanid ii sheeg jecel oo ilaahay kula og yahay sidii adiga aa u taqaanid maarishna si bay u taqaanaa qurux ku dhiilina si buu u yaqaanaa adi jecel see u taqaanaa adi ahaan aniga caruus jecel 4 si bisa kusoo kooba aqoonta jecel marka hore waxaan kusoo koobaa habeenkii marka ugu dambeeya aa seexanaysid inaad isweydiisid qormaata ma ku soo wacday adi ma wacday xaaladeeda sida qofka ugu dambeeya kaa seexanaysid aad ka fikiraysid subaxi markaa soo kacda ama maalinka markaa macnaha nolol maalmeedkaaga aad ku jirtin aad ka fikiraysid xaaladeeda aad weydiinaysid xanuun uu ku dhibaayo farxadeedana aad ku farxaysid qofka intaas qalbigaaga ku orto waa qof aad jeceshahay taasaa jecel u aqaanaa waxaan kale u aqaanaa jecelka labada daraayo wax adiga aad rabtay inaad samayso inaad qofkan dartiisa u tagtid iyo wax adiga aadan rabin inaad samayso inaad qofkan dartiisa u samaysid may haaruun siduu u yaqaana asagana ha noo sheego haaruun adigu sidee u taqaanaa jacayl ani intaas u aqaanaa horta maxay ahayd inta adiga aad sheegtay maxay ahayd waxna waa jiraan waxna ma jiraan ma fahamtid dadka wareysatid ma aha keliya inaad dark adiga dadku la ordid ma aha waa in adiga wax adiga aad samaynaysid lagula sameeya haddaa arki weysid waa inaad booskaas ka kacdaa saaxiib jecelka saas waay baby iyo biyaha kaa dhaxarkaa iyo halay see ku barida iyo sambuuski ma soo qaada iyo mandhaasiga ma soo qaaday nafaqadii ma soo qaaday ma noqonaysa jecel horta jecelka saasa u fahantaa ma aha jecelka horta qalbiyan waaye waa qofka maku kalsoon tahay maku kalsoon yahay waa jecelka saaxiib keliga inaad wax walba aad qabatid muhiim ma aha waayo hadhow waxaa noqonaya qof banaan looga tagay waa sida hadda adiga aad sheegaysid maxamed bashiir hadalka adaa ku siinaa waana ka baxaa ma ogtahay maxamed bashiirow ma ogtahay qofka markuu xoogaa waaye uu adduunyada soo joogay oo qof xoogaa da' noqday hurdada uu asaga u baahan yahay hurdo ka badan inaa adiga u baahan tahay ma ogtahay maxamed bashiir waa ku fahma buu hal mar intaan halkan bes a uga baxo waxaa ku dhahay qofka markuu adi xoogaa kaa weyn yahay da ahaan oo qof hortaa adduunyada soo jooga uu yahay sida hadda adeeradeeni iyo aabbayaasheeni hooyooyinkeeni habeenka intay seexdaan in ka badan inaa anaga hurdo u baahannahay ma ogtahay neo firi hal mar haruun sugtee هارون توبي قبل تاجنين هارون يا عروش ما تاجنين هل مر إسي حتى هذا كبعد هارون موجودو حتى كبعد هذا الكلام هذا هذا أردن بمحيط مشاكل كذا برانكا ما يتهين مية ونو شيء هذا برانكا هذا واحد هارون حتى هذا الكبعد هالمر عند مستو حتى هذا الكبعد هالمر عند مستو محمد بشير متى هيسيدا مسمع أنا كده دتكو وين إني هردم مركلة ده أنا عن كجباه بدنا هردة متى مسمع si fiican 8 saacadood maskaxda u baahanta laakiin aabba iyo hooyo iyo dadkeena waaweyn awoowayaal iyo habeenka dhex iska soo kacayaan hadday rabaan subaxa lasaydu iska soo jeedaan fiidka eeliya seexanayaan macnaha waxaa waaye badanay adduunka soo joogeen waay kadaalika haddana waxaa laga siman yahay qofka markuu qof weyn uu yahay waxyaalo fara badan uu ka tanaasula isla markii ama waxyaalo fara badan isla markii uu ka tagay aa jirto laakiin qofka markuu weli qof dhalinyaro yahay weli waxaa waaye badan ma arkin ma arkaysa hadda qof 40 jir ama 50 jir ama 60 jir ma arkayso maanta qof xumeey ama jacaylaas iga naqda ku dhahay ma arkaysid waaye fara badan oo soo arkay already uu soo ilmay inta soo ilmay karo inta la qalbi jibo ko la soo qalbi jibo taas waa waxaan hadda ku sheegay
caruush ها horta adiga wallahi qisada ka sheekaysay qisada ani aan soo maray xitaa nus cidideeda ma gaaraysa halaha xanuun ay leedahay mafahad taa ay tahay is another case of long story in short warka dhan waan soo koobaa caruush hal dhibaan ku haysto halkaas qof walbo wax jecel ayuu haystaa halkaasa wuxuu yahay qofka bini'aadanka meeshuu ka nool yahay waa qalbiga qalbiguu ka nool yahay qalbigaada hadduu dhaawacmo waa noolaanaysaa balse waxaa u noolaanaysaa sida dhintay oo kale waa haddii qiyaaliga ay naftaada ku nooshay asii raaraac qofkan yaa waay meeshan comment maxaa ugu bixisaa gabadha la sawiran tahay maxaa waay gabadha dhuwid maxaa ugu samaysa markay ku leedahay you just think like waxaa u malaynaysaa gabadhan inay adig kuu maseerayso still qalbi wax jecelaata waxaa is leedahay gabadhan hadday kuu maseerayso way ku jeceshahay weli jeceelkaani waxbaa jira weli way ku jeceshahay is leedahay laakiin waxaa ogaataa qof ay hal maalin nolol idin dhex martay xitaa haddaadan jecleen haddaa qof kale ku aragtid waa u maseeri waa qalbiga bini'aadanka wuxuu u samaysan yahay waxaa laga yaaba ruux aad 2 bilood 3 bilood isla socoteen iyo ruuxa hal sano isla socoteen waxaa laga yaaba ruuxii 2 bilood isla socoteen inuu qalbigaada ku weyn yahay haddana ruuxii halka sana isla socoteen markaa qof kale ku aragtid waxaad dareemaysaa maseer yar marka maseerkaa ma ahan qofkii dib ugu laabo qofkii waa ku jecelyahay ma ahan caadifadu bini'aadanka markaa u samaysan marka walaalkii waxaan ku dhihi lahaa gabadha kasta ay ku maseeraysaa u malaynin inay ku jeceshahay waayo hadday ku jeceshahay 7 bilood qalbi wax jecel ma aamuseen oo meel ma seexdeen marka walaalkii waxaan ku dhihi lahaa qofta iskii والله ما كجعل هذا كجعل تضرب بلود كام أمستي مع إنكارنتك ولا الكل هذيك مرك خوق يجعل أسكار درسمي مرك الله كان بذوي معك القولي اوكي aruushow waxaan ku weydiinaa markaa sheekh xasan ibraahim aa u tagtay muxuu ku yiri gabadhaas keen muu ku dhahay mise waa kula taliyey si diiniyan ahaan uu kula taliyey ii sheeg talada oo isiya kuu sheego wuxuu igu dhahayey qof khayr kuu ah khayr jooji marnaba kuma dhaheen noomaati inta adiga jecesha ama inta iyagu jecel yihiin xitaa jecelka adi aad jecesha jecel ka badan hadday iyaga ku jecel yihiin qof khayr kuu ah khayr jooji kuma uusan dhaheen wuxuu igu dhahayey oo kuu duceynaa maanta wixii ka dambeeyna talada aan ku siinayo waxaa waaye qof kasta oo wanaag kugu dhiirigelinayo oo wanaagga aad samaynaysa hore u soco ku dhahayo waa qofkaaga waa qofkii aad lagaa rabay inaad jeclaatid oo soo dhaweysatid qof walboo xumaanta raadinayo ama wanaaggaaga dafirayo qarinayo ama qof maqaam adi aadan lahayn inuu kaa soo bixi isku tagayna waa qofkii aad u baahneed inaad waqtigaaga ku bixin oo noloshaada kasii qabsatid waanadaada wacdigaaga dadnimadaada diintaada meesha kasii wado waana kuu duceynaa waxaana isku soo dhammaanay igu dhahay duco fara badan oo duco dheer oon ii duceeyey inta badanna ducadiisa ilaahay subxaana watacaala qalbigayga soo xijiyeyba oo wixii intooda badan aan kaga maarmay marka haaruun hal su-aalaa ku weydiina caawa oo idil baa wada hadlayni su-aashan waxaa rabaa haaruun adoona inta ii fiirinin intana ii fiirinin inaad caruush xitaa inta iska daysid aa caadi sida aa qof walaal ugu jawaabi lahayd inaa igu jawaabtid topic markaa soo xirnay haddii aan garanayo su-aasha waa ka jawaaba haddii garan waayana ma ka jawaabi kari okay laakiin tabliiq okay tabliiq waxay sameeyaan haaruun tabliiq waxay sameeyaan si u wacdinayaan waxay dhahan yaa ilaahay dartiisa u baxaaya ee wacdigii kusoo koobaan ma tahay mismaha sax waay culummada si u wacdinayaan soo koobaan duco soo maaha sax waay walaalaha ay u sheekaysanayaan wana dhibkan mar dambe dareemay sidee in loo istaago lisugu gurmado Soomaaliyeed in isku guranka dadka kala dhan waa waxa kaga fiicnaano dhowr iyo 30 sano wadankeena burbursanaa iyadoo cidnana biilan ceelna noo qodneen waxa inta ka gaarin taageero oo isku tiirsada ee hadbakiina taag darani ah intaan ku soo gaarno Soomaaliya mata mismaa horta waxaan Bashiir oo dhahayo ana gabar in adeertii ku siina ama ana gabar walaashii ku siina ama adi ay dhahayd ana gabar ku raadina in ay dhahdin aan ku soo goobteen hadalka maxaa diidaa haaruun maxaa habar oo ku barya aamus ore habar aamus maxaa diiday haaruun iyo maxamed Bashiir warnay xagee joogtaa meeshin joog kasay xitaa meeshin joog kasay hadee waxaan neew
هارون maya أبو سؤال شيء يجي جواب هارون ما كان عيل هدايا okay كوشة okay su'aashaada waa ka jawaaba aan iswareysano horta xagee joogtaa kowda horeeto marka hore أنا واحد جوا كونفور أفريقيا دينيتك لكن tabliiqa ku ربية مجال adi ma بيئة ده tabliiq maa ku jirtaa mise dukaana leedahay waa shaqaysanaysaa ma tabliiqaa tahay mise تراجلية يعني taraaqley ah oo kuwa oo gobolada قبل ها ساوث أفريقيا سيفي إحنا أنتقنا كل هذا تراجل جوهانسبرغ إلا إلا south africa waa joogi jiray maxay ahayd kuwa gobolada cape town iyo be johannesburg ka shaqeymaya iyo gobolkaas ما liponti أنا dhulkaas أنا وحاء أدنى جوهانسبرغ to be أدنى be to East London to go back to okay Joburg reer johannesburg aan ahaa maraan joogay south africa haddana ما قصنا waa kasoo jaag almost indhaha kaa soo haray saacan 3 years aan joogay okay su'aalaha hata marka in laga jawaabo ani jack baa ka jawaabayn mise anaa i weydiinaysaa aan ka jawaabo هارون markay dhamaystaan yaana raacayo masaajidka noo raacayo وصحنت kadib ولا ها maxay ahayd dar ilaahay u baxo maho ها هارون qolka صح هارون dar ilaahay yaa u baxaayo horta maxay ahayd waa wanaag xumaan ma ahayo ما شاء ilaahay الله dartiisa wax walba ilaahay dartiisa wax walba loo dig aad badsinaysid qulubtaada jilcis ma fahantay waa لا nasteexaday نريد ka mid منكم جزاء dadka ولا muslimka شكر ugu nasteexaynaayo ma fahant رحمة okay maxaa kale ku xigay hada ma aheeno علماء إني أدعوك سوق تمان ducadaas ay waa maxay ahayd nabaday ka mid tahay ma fahant وواحد قف ilaahay قف ولا شيء أما دب لقى شيء إن لا دب كهلا قال جورم ماذا جورنك إسكو جورنك سومالي ذا أكلمن okay dhibka marka asaga kala ah dhibka labo u qaad سيدي maxay تقعد ahayd دير دب أنسو أفجرنا بس maya dhibka labo u qaad jaag dhibka hurdaa qabatay niyaho indhihii baa ku taagtaagmaye dhibka maxay ahayd soo gabagabeeye waa hub soo gad راسم qabn hebelaa la dilaa maxay ahayd neef geelkeen 5 neef geelkeen ariga keen waa aan ku moorotire hubkaada hawlahaada keen waay kaas maxay ahayd gurmadna looma yaqaano waa la iska diidaa gurmadka midka hadda adiga uu ku haysto waaye gurmada u baahan tahay iyo maxay ahayd gargaara u baahan tahay haddaa gargaar adiga aad rabtid waa lagu gargaaraa taladaanadana qaadane thank you walaalkay Harun may waa lagu gargaara mar daad meeshii ugu ekay barayfadan ka dhigaynaa waanu kugu duceynaa ilaahay waxa waaye wax ku dhibi ilaahay kuma tuso talaabta qaad ilaahay barakeeyo xoogaaga iyo xaniyahaaga iyo xoolahaaga ilaahay ku barakeeyo cid walba uurka ka nicib ilaahay ka qabto waalidiintaada inta maatan naqata ilaahay qabrigooda u waasiyo ilaahay rawdatu miraadil janna qabriyadooda allah uga dhigo inta nool ilaahay caafimaad taam ha siiyo wax walboo rajeynaysid ee maanta wanaag kuu ah horumar kuu ah ilaahay raali kaaga yahni ilaahay subxaana watacaala waxaan ku weydiinaa inuu kuu fuuday sida ugu dhaqsiyaha badan degdega gurmadka aad dhahdane barayfadee noo ahaanay waxaa laga yaabaa hal qof oo uurkiisa fiyoweyn inuuna daawanaayo uu aamiin iyo dhihidiida halkaas qofna sabab ilaahay nooga dhigo aamin folowey soo dheh saaxiibkay maxay ahayd folowan ku soo dhaha hadduu ilaa yidhaahdo waa isla xiriiraynaa ma fahantay jack iyo mariish aawoo dhan meeshan waa saaraneedeen doco aad dalbateen ma laha docodii anaa dalbaday anaa qaatay arushow horta run iyo been waxay tahay allahu aclam ma fahantay arushow horta hal mid aan ku dhahaa taag dhamayso waana kasii degayaa waqti dambe been allahu aclam laakiin muhiimadda waxay ku leedahay muhiimadda aan hadalkii aan kusoo kooba waxay tahay murug haddaad dareentid jaceylka murug iyo xanuun uu leeyahay murug iyo xanuun haddaad dareentidna ilaahay wuxuu dhahay daawadiisa iyo shifaagiisa waxay ku jirtaa in aan ii soo laabatid kitaabkeygana aad rumaysid daawo walba maa min daa'in ilaa walahu dawaa cudur ma jira aan daawo lahayn xanuunka jaceylkana waa cudur ka mid ah marka cudur walba daawada uu leeyahay last medicine waxaa waay qur-aanka waay marka walaalkii qur-aanka isku tuf isku aqri nabiga baa isku aqri jiray waa ka kacay baaraka allahu fiik maxamed bashiir qur-aanka 24/7 aa kor taagana kowdhe talada oo walaalkii habar adi ku soco habar yar horta fiiri waqtigii guurkana waa joogtaa maantana ma tihid lama dhihi karo
nin waahe waa dhaaf waqtigii guurka maya waqtigii dhalinyarada ku jirta waqtiga la raba inaad guursidaa joogtaa maanta nin shaqaysan ayaa tahay maasha allah isku filan intaa kaa aragnay soo lagama fiicinin inaa hadeertaan aadan ku mashquulin jacayl iyo waxaasoo aad guursato waxa dhanba soo gabagabaysa habar wallahi su'aal fiican waay walaalkii Haruun hadal uu ii dhameeyay yaa maadaama khiyaali jacaylka sidiisaba intuu banaanka joogo ma aragto waa khiyaali ma ogta waa waqti jacaylka lagu sheegay mar haddii nolosha saxda ah mar hadduu guur gaaro nolol sax u noqonaa ma fahante warku ku soo hadalka markiina ugu dhigtay jacaylka lagu sheegay qooq waay aroos waa degay warka saliidda iska aroos marka waa dhamaanayaan qofka aroos waa degay iska aroos ma fahante